Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. dhegaystayaal tanina waa sheekadii nebi yacquub nabadgelya korkiisa ha ahaatee sheekada nebi yacquub qur-aanka si faahfaahsan uguma soo aroorin sidaa darteed waxaa laga soo minguuriyey inteeda badan kutubta taariikhda iyo kuwa tafaasiirta ama laqbaha qur-aanka yacquub ayaa maalin maalmaha ka mida soo ag joogsaday aabbihii isxaaq oo ahaa nin da'oobay oo jilcay oo sidii qaanse u soo gatay kolkaas buu ku yidhi aabbow waxaan kaaga ashtakoonayaa walaalkay ciisu oo mar walba ii goodiya iina dhaarta tan iyo maalintii uu arkay inaad indho jacayl igu eegayso ee aad ii ducaynayso tan iyo markuu maqlay inaad ii saadaalisay warase wanaagsan boqortooyo la kala dhaxlo iyo nolol barwaaqaad maalintaa laga soo bilaabo walaalkay ciisu wuxuu ii quuri waayey ducadaada wuxuuna iga xasday waxyaabaha wanaagga iyo khayrka ah ee aad ii saadaalisay hadal kulul gurre iyo goodi ayuu tan iyo maalintaas ila daba joogaa ilaa uu xumaaday xidhiirkii walaaltooyo ee naga dhexeeyey oo jacaylkii aannu isu haynayna uu baaba'ay intaa ka sokow wuxuu iigu faanaa labada dumarka ah ee uu qabo ee uu reer Kancaan ka guursaday wuxuu iigu taag sheegtaa warasada timaadada u dhalan doonta ee aniga risiqa iyo noloshaba igu ceeli doonta aabbow waxaan kuugu soo dacwooday si aad aniga iyo isaga noo kala saarto waxna aad noo kala tiraahdo adiga oo adeegsanaya talada iyo caqliga wanaagsan ee uu eebba kuugu deeqay nebi isxaaq nabadgelya korkiisa ha ahaatee oo ka gubanaya colaadda labada walaalaha a kala goysay ayaa yidhi maandhow sida aad ka aragto timahayga ciradu waa qarisay oogadayda jiricday iyo dhabarkayga qaansada u ekaydana waad aragtaa waxaan noqday coobar xooggii ka dhammaaday inaan dunida saagootiyo ayaan sugayaa waxa aan dhowrayaa uuni waa aniga iyo nolosha inay geeridu na kala kaxayso waxaan ka baqayaa dhimashadayda kadib walaalkaa inuu si bareerah kuu colaadiyo oo uu dirirtaada caadaysto waa nin xoog iyo itaalna ku dheer xididkiisna ku tiirsan oo isku hallayn kara waxaan kolka kugula talin lahaa inaad u sadcaasho fadaam aaraam oo ka mida arlada ciraaq waxaa halkaa ku dhaqan abtigaa laabaan ina batwiil gabdhihiisa middood guurso markaasna waxaad heli doontaa gobonnimada iyo awoodda aad u baahan tahay sidaas markaad yeesho dhulkan ku soo noqo markaad timaadana waxaan kuu filayaa nolol midda walaalkaa ka raaxo badan iyo warasatiisa ka wacan oo ka dhowrsoon eebba ha ku dhowro oo ha ku ilaaliyo erayadaasi waxay barbaarka yacquuba ula mid ahaayeen biyo qabow oo ku dhacaaya laab u ooman waxay ahaayeen erayo uu qalbigiisu xasillooni ka helay oo markuu ugu baahida badnaa dhegihiisa ku soo dhacay wuxuu u hiyi kacay dalkii aabbayaasha iyo awoowayaasha iyo halkii uu reerkoodu ka soo askumay ilmo kulul isaga oo ay ka daadanayso ayuu aabba iyo hooyo saagootiyey iyaguna waxay ku saadeen ducatii ugu wanaagsanayd waddada ayuu cagta saaray lamadegaanka ayuu habeenkiina ku guureeyey dharaartiina ku boqooray mar uu burco tafa iyo mar uu ban u soo dego la kulanka abtigiis ayuu madaxa ku hayaa erayadii aabbihiisna si wacan ayuu u xusuusan yahay daryeelka eebbana waa ku laran yahay mar alla markuu daalo oo xagluhu ay dabcaanba waxa uu xusuustaa arrinta uu u socdo iyo rajada wacan ee uu ka qabo wanaagga ku soo fool leh markaas bay tabar cusubi soo gashaa oo arlada kala fogi ay u soo gaabataa dharaarihii uu sodcaalka ku jiray dharaar ka mid ah kasa duwan ayaa la soo gaaray waa dharaar kurayl badan oo hanfigu indhaha halis ku yahay qorraxda ayaa fallaaraheeda dabka ah si toos ah dhulka ugu soo ganaysa kolkaas buu yacquub socodkii tahli waayey dhulkii baa ku fogaaday hareerihiisa ayuu eegay mase waa lamadegaan tan iyo idikuwareerta sii taxan iyo bacad aan burco lahayn geed lahayn wax alla waxa lagu tilmaansadana aan lagu ogayn quus baa taabatay daalkii baa xubnaha oogadiisa taag oo idil kala tegey ma socotaa ma noqotaa dhibta ma u adkaysataa si aad u hesho xoog iyo cid berri ka maalin kuu cudud noqota mase waad iska daysaa oo sadcaalkan dheer ee dhibta badan waad isaga laabataa isagoo sidaas iskula hadlaaya oo su'aalihiisa jawaab sugan ula ayaa waxaa u muuqday dhagax dhadhaab ah oo hoos leh wuu ku leexday
si uu cabbaar ugu nasto oo ay caguhu ugu qaboobaan. markuu ku tiirsadayba intuu lulmooday ayuu gam'ay. intii uu hurdada ku jiray ayuu ku riyooday riyo wacan oo ay naftiisu ku faaraxday, rajo weynina ay ku soo gashay. wuxuu ku riyooday eebba inuu siin doono nolol barwaaqaad, boqortooyo aad u baaxad weyn, waraso barakaysan oo wanaag badan, kuwaasoo uu eebba dhulkiisa dhaxal siin doono, aqoonna uu ugu deeqi doono. isagoo faraxsan oo quustii ka ba'day, rajo fiicanina ay qalbigiisa buuxisay, ayuu hurdadii ka toosay. wuxuu u qaatay riyadaasi inay tahay saadaashii aabbihiis mid sii adkaynaysa oo hirgelidda himiladiisana sii rumaynaysa. sidii gamuunkii ayuu orod istaabtay, isagoo sidii hore ka mintidsan ayuu waddada cagta saaray. dhulkii baa loo soo duubay. waxaa gudbay maalmihiisii sudcaalka. bidhaan baa u muuqatay, markaas bay raja soo gashay. wuxuu fishay afaafkii magaalada iyo degaankii abtilaabaan inuu soo gaaray. tallaabada ayuu hoos ka boobay, wuxuuna isgeliyey xoog cusub. cabbaar yar kadibba wuxuu ogaaday inaan dadaalkiisii khasaare ahayn, himiladiisiina aanay meel cidla ah ku dhicin. waa kuwaas oo durbadiiba cagihii ayaa u qaboobay, qalbigii midharhku daboolay ayaa u cusbaaday, daalkii iyo niyadjabkii ayaa ka ba'ay. mar kale ayay naftiisii raaxa dareentay. waxaa u muuqda aryihii, shimbirihii iyo dhirtii. waxaaba dhegihiisa ku soo dhacaya arijirtii iyo carruurihii oo heesaaya. intaasiba waxay astaan u yihiin lamadegaankii iyo isagu inay isdaayeen. waxa uu haatan ku sugan yahay dhulkii ibraahim iyo halkii ay caqiidadiisu ka soo fuftay. wuxuu haatan joogaa dhulkii abtigiis oo ah ninkii uu u soo sodcaalay ee uu weliba arlada geri go'anta ah uu daraaddii u soo jiiray. kolkaas buu sujuud la dhacay, isaga oo eebbe uga mahadnaqaya barwaaqada uu siiyey iyo dantiisa uu u qumiyey. yaaquub oo ah nin qaraad oo aan la garanayn ayaa dadkii u soo dhowaaday oo ku yidhi, laabaan ina betwiil qofkiin yaqaani ma idinku jiraa? markaas bay yidhaahdeen, oo waa kuma qofka naga midka ah ee aan aqoon laabaan? waaba rasuulka isxaaqa seedigiisi, waaba ninka qoladiisa madaxda u ah ee reerahoodu ay shinsadaane, waaba ninka iska leh xoolahan tirada badan ee ay bananka iyo buuruhu qaadi la'yihiin. markaas buu yidhi, aqalkiisa iyo meesha uu ku sugan yahay qof itusi kara ma leedihiin? kolkaas bay yidhaahdeen, waa taa gabadha uu dhalay ee raaxiil lagu magacaabaa, waa taa ariga la joogta. yacquub ayaa kolkaa dhugtay halkii farta loogu fiiqay. kolkaas baa waxaa u muuqatay gabadh qurux iyo ooga simanba loo dhammeeyey oo bilic la tiicaysa. laabtii baa ruuxatay, hadalkii baa ku xirmay. ha yeeshee isbeddelka ku dhacay intuu is-ilowsiiyey oo caqliga kaashaday ayuu ku yidhi, aniga iyo adigu gabarh yahay waxaannu nahay hilbo, qaraabo dhow ayaannu nahay, isku isir baannu ka soo jeednaa. waxaan ahay yacquub, waxaana i dhalay rasuulka isxaaq ah. hooyaday waa rifqa, awowgaa batuuk ayaana dhalay. arlada reer kancaan ayaan ka imi. lamadegaanka dubka dhalaaliya ee cagaha ka dhiigeeya waxaan u soo jiiray inaan laabaan la kulmo. waxaana ula socdaa arrin culus iyo xaajo aan fududay. kolkaas bay iyadiina weji furan iyo sheeko macaan ku soo dhoweysay. dabadeedna waxay u hormartay gurigoodii iyo aabbaheed laabaan halkii uu joogay. waddada intuu ku soo jiray ayuu iska dareemay xasilooni darro, deganaansha la'aan iyo wax aanu garanayn oo culaysinaya. ma waxaa ugu wacnaa aragtida inanta oo ahayd rajadii uu laabta ku hayey, saadaashii aabbihii iyo riyadii uu lamadegaanka ku arkay? mase waxaa ugu wacnaa qariibnimada iyo culayska arrinta uu duqa ula socdo? tan hore sababtu way noqon kartaa, tan labaadina waa wax suurageli kara. ha yeeshee si wacan ayuu naftiisa u xakameeyey. tallaabo xasiloon iyo socod aan keerkeer lahayn ayuu iska helay. abtigii laabaan ayuu la kulmay. markuu u soo dhowaadayna waa isku duubay. farxad aawadeed ayuu la ilmeeyey. dabadeedna meel wacan oo u qalanta ayaa isagiina la dejiyey. sidii uu mudnaana waa loo qabtay. isla markiiba nebi yacquub wuxuu abtigii u sheegay sababtii uu aabbihii u soo diray iyo rajada uu ka qabo la xididkiisa. waxaa kale oo uu u sheegay inuu raaxiil arkay, dabadeedna ay qalbiga kaga dhacday oo uu rabi lahaa inay u noqoto oori iyo xarig barakaysan oo labadooda isku xidha. markaas buu laabaan yidhi, hawraarsan iyo guddoon, wixii aad i weydiisatay waan kaa yeelay, dantii aad lahaydna waan kuu qumiyey. waxaanse shardi kaaga dhigayaa inaad ila joogto 7 gu oo aad ariga ii raacdo, taas oo gabadha meherkeeda ah. muddadaas aad ila joogto aniga ayaa ku dhaqaalayn doona
si wacanna ku hayn doono. shardigaasna yacquub waa oggolaaday. arigii ayuu usha u qaatay oo abtigii u raacay, isaga oo maalin walba iyo saacad kasta ka fakaraya nolosha wanaagga badan ee uu mustaqbalka ku noolaan doono. raaxiil waxay ahayd 2 gabdhood oo Laabaan dhalay tooda yarayd. laya ayaa xagga guga ka weynayd, inkastoo ay ku xigtay marka quruxda iyo bilicda la eego. Laabaan kuma tashanayn, shareecada qoladiisuna ma oggolayn gabadha weyn oo aan la guursan in midda yar loo guuriyo. gabdhaha in la isdhaafiyo ayaa xaaraan ka ahayd. ha yeeshee duqu ma uu rabin yacquub inuu niyad jabiyo oo uu raaxiil u diido, gaar ahaan kadib markuu arkay oo iyadu ay beer qaaday. Laabaan wuu fakeray, wuxuuna ugu dambaystii helay farsamo uu arrinta ku furdaamiyo. wuxuu guddoonsaday 2 gabdhoodba inuu barbaarkan u dhiso, maxaa yeelay wuuna u qalmaa oo mudan yahay. shareecadii ay ku dhaqmi jireenna ma diidayn 2 dumar ah oo walaala ah isku mar in la guursado. muddadii ballantu ahayd yacquub waa dhammaystay. waxaa la soo gaaray wakhtigii uu aroosi lahaa ee uu Laabaan weydiisan lahaa intuu ballanqaadkiisii ka soo baxo inuu inanta u dhiso. kolkaas buu odaygii yidhi, maandhow, qalbigayga iyo shareecada dhulkaniba ma oggola gabadha weyn intaan ka gudbo midda yar inaan kuu guuriyo. tani waa laya, oo inkastoo dhinaca quruxda aad raaxiil ka jeceshahay, haddana waa gabadh xagga caqliga iyo garashada u dhiganta. iyada guurso oo ku qaado meherkii aad bixisay. haddii aad doonto inaad raaxiil ku darsatana, ila joog 7 gu oo kale oo aad ariga ii raacdo. taas baana meher kale kuu noqon oo raaxiil oo sharfan aan kuugu aroosin doona. yacquub oo ahaa rasuul wanaagsan, isuma uu quurin talada abtigiis inuu diido, wixii uu ka doonana uu maya ka horgeeyo. isagu siday wacnayd uma u soo dhoweyn oo si wanaagsan uguma samafalin. inuu la xidhiidana degdeg uguma oggolaan. shardigii cusbaa ayuu yeelay, wuxuuna la aqalgalay laya. 7 sano oo kale markii ay ka soo wareegtayna raaxiil ayuu guursaday. Laabaan wuxuu 2 gabdhood ee la guursaday mid walba siiyey gabar addoon ah oo u adeegta. iyagiina waxay labadiiba isku mar u hibeeyeen saygoodii yacquub. dabadeed 2daas addoomood, laya iyo raaxiil, ayuu eebbe 12 wiil yacquub ka siiyey, kuwaasoo ilaa maanta loo yaqaan warasadii nebi yacquub.